munaasabadan oo maanta aan kula wareegayno qalabkan ciidan waa munaasabad runtii ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto ay ku farxi karto annagana gaar ahaan ka wasaaradda gaashaandhigga runtii aad iyo aad aan ugu faraxsannahay waxaan rabaa sidoo kale in aan u mahadceliyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo asigana sidoo kale runtii muujiyay dadaal aad iyo aad u xoogan inaan helno qalabkan ay nagu deeqaan runtii asna qayb ka noqday runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa waxaa sidoo kale aan rabaa inaan u mahadceliyo dadkii ka soo qayb galay xafladda nala joogo iyagana sidoo kale waa u mahadcelinayaa waxaan rabaa laakiin aan rabaa inaan shacabka la wadaago insha allahu tacaala waxaa la gaaray waqtigii dalkaani nabadgelyadiisii iyo sharafkiisii iyo karaamadiisa ay soo laaban lahayd waana waqtigii waxaa la gaaray laga adkaan lahaa dadkii dhibaateeyey ama dhibaataynta shacabka Soomaaliyeed runtii mar walba u taagan xilliga aska dhicin lahayn ummaddan Soomaaliyeedna dhibaatada ay ku hayaan ka dulqaadan lahayn